Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Daawada kusoo dhawow channelka Jamiila Show. Barnaamijkeena maanta waxaan diiradda ku saari doonaa Generaal Daa'uud. Waa kuma Generaal Daa'uud? Generaal Daa'uud Cabdulle Xirse, taliyihii ugu horreeyay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxa uu ahaa halyey lagu bartay daryeelka ciidamada iyo caawinta dadka tabarta daran ama masaakiinta ah. Sanadkii 1924 ayuu ku dhashay tuulada Mareeg ee ka tirsan gobolka Galgaduud, Soomaaliya. Allah u naxariistee, Generaal Daa'uud Cabdulle Xirse halkaas ayuu ku dhameeyay aqoontiisii Quraanka isagoo da'yar. Xilligii uu dhalinyarada noqday, waxa uu muddo sanad ah uu ka shaqeeyay xafiiska gumeysiga Talyaaniga oo ku lahaa degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan, wuxuuna muddo gaaban kadib u wareegay magaalada Muqdisho. Generaal Daa'uud Allah u naxariistee, intii uusan bilaaban dagaalkii labaad ee adduunka ayuu ku biiray ciidamada booliska oo waqtigaas maamulayay gumeysiga Ingiriiska oo xilligaas haystay koonfurta Soomaaliya. Waxaa generaalka uu shaqadiisa ka gaaray ilaa bare, isaga oo tababare ka noqday dugsiga booliska ee ku yaala degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Horaantii sanadkii 1950 ayaa gumeystaha Talyaaniga ku soo noqday koonfurta Soomaaliya, waxaana Generaal Daa'uud u suura gashay in uu ku guuleysto imtixaankii uu u galay layli sargaal, waxaana markaa kadib loo qaaday dalka Talyaaniga, halkaas uu ku soo dhameystay tababarkiisii ciidan ee sarkaalnimada. Sanadkii 1954 ayuu Generaal Daa'uud Cabdulle Xirse ku soo laabtay dalka Soomaaliya, wuxuuna ku shaqaynayay sarkaalnimo dhinaca booliska ah. Kadibna waxa uu ka qayb galay diyaarintii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay markaasi abaabuleysay dowladdii daaqiliga ee uu horkacay Allah u naxariistee Cabdullaahi Ciise. Xeerkii lagu dhisay ciidamada xoogga dalka ayaa darajada generaalka u dallacsiiyay Daa'uud Cabdulle Xirse, waxa uuna noqday taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horreeyay, iyadoo uu noqday taliyihii ugu da'da yaraa ee taariikhda soo mara maamul ciidan ee militariga Soomaaliya. Generaal Daa'uud waxa uu ahaa qof diinta ku wanaagsan oo baari ah, kuna dadaala runta, waxaana la sheegay isagoo sargaal sare ah in uusan dadka jidka ku dhaafi jirin, hore ayuuna u qaadi jiray maadaama uu watay baabuur, iskamana weyneyn jirin dadka shacabka ah. Waxyaabaha kale ee wanaagsan ee lagu sheegay taariikhdana ay warinayso Generaal Daa'uud Cabdulle Xirse waxaa ka mid ah in ay jeclaayeen ciidamadii Soomaaliyeed, maadaama uu aad ugu dadaali jiray daryeelkooda, iyadoo ciidamada ay taliyahooda u hayeen ixtiraam aad u weyn. Waxaana sidoo kale jirtay in uu quudin jiray dadka tabarta yar ee soo beegsada xeryaha ciidamada, waxa uuna oran jiray dadkaasi wax walba oo raashin ah oo aad ku aragtaan ee yaalla xeryaha ciidamada waad cuni kartaan. Taariikhaha baalka dahabka ah ku daawacan ee uu ka tegay Allah u naxariistee Generaal Daa'uud intii uu ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka waxaa ka mid ah isaga iyo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee uu madaxda u ahaa, waxa ay guulo la taaban kara ka soo hoyeen dagaalkii Soomaaliya ay la gashay Itoobiya sanadkii 1964, markaas oo loo aqoonsaday halgamaa geesi ah oo aad loo xurmeeya. Allah u naxariistee, Generaal Daa'uud Cabdulle Xirse sanadkii 1965 ayaa isagoo xanuun haya dartii caafimaad u joogo magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayuu ku geeriyooday. Markii uu geeriyooday kadib, generaalka si uu magaciisa u waaro, waxay dowladda Soomaaliya ugu magac dartay koob dhinaca kubadda cagta iyo midka kolayga ah oo ay ku baratamaan kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale loogu magac daray meel qabuuro ah oo lagu aaso dadka wadada Generaal Daa'uud, iyo weliba iskuulo ama dugsiyo dhexe sare ee Generaal Daa'uud oo dhammaan ku yaala magaalada Muqdisho. Guud ahaan waxaa halkaasi ku eg barnaamijka aan uga hadlaynay taariikhda kooban Allah u naxariistee Generaal Daa'uud. Intii aan ku kulmi doono barnaamij noocan ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.